إبراهيم حسين wuxuu ahaa ganacsade Soomaali ah wuxuu ahaan jiray wakiilkii CIA Muqdisho sanadihii 90kii ilaa 93dii waa sida ka dhex muuqatay tafaasiil ay bixiyeen saraakiil hore ugu shaqayn jiray CIA Mareykanka magaca sirta ah ee sirdoonka Mareykanka ay u yaqiineen Ibrahim wuxuu ahaa Maylil Ibrahim gacantiisa ayuu isu toogtay sanadkii 1993dii isagoo ciyaaraya dheesha loo yaqaan Russian Roulette waa ciyaar bistoolad wareegtaan la geliyo xabad kadibna qofka uu dhafoorka isaga qabto isaga oo ridaya bal inay xabad ka soo booday in kale 7 sano kadib ayay CIA Mareykanka ku tuhuntay geeridii Ibrahim inuu ka dambeeyay Mike Shanklin oo ahaan jiray ku-xigeenkii madaxa xafiiska CIA Muqdisho sababta tuhunka dhalisay waxay ahayd Shanklin oo guursaday gabadhii ay Ibrahim isku doonaayeen midaasi oo u dhalatay waddanka Talyaaniga Stavenia Bashe waxay ahayd dhakhtarad ka shaqayn jirtay howlaha samafalka Soomaaliya muddo 10 sano ah laga bilaabo 88 ilaa 98 Mike Shanklin guurkii uu guursaday Stavenia awgeed waxay CIA albaabada ka xirtay Shanklin waayo muusan u sheegin madaxii ka sareeyay isaga xiriirka guurka ah ee kala dhaxeeyay gabadha Talyaaniga sida muuqata waxaa jira sharci CIA u yaala oo ka ilaalinaya shaqaalaheeda inay guursadaan dad ajnabi ah waayo ceerinta Shanklin waxaa loo cuskaday inuu jabiyay xeerarka hay'adda CIA u tiil qoraaga ruugcadaaga ah Vernon Loeb oo u qaabilsanaa arrimaha sirdoonka iyo militariga wargeyska Washington Post ayaa dhowr maqaal ka qoray qaabkii uu geeriyooday Ibrahim Hussein oo dadkii la socday xaaladiisa ay aaminsan yihiin inuu isaga isdilay Loeb wuxuu qoray in Ibrahim uu geeriyooday iyada oo CIA ay ku jirto howl xasaasi ah ay ku doonayeen inay ku soo qabtaan General Maxamed Faarax Aydiid waxay ahayd goor galab ah markii Ibrahim uu soo istaagay barxadda gurigiisa isaga oo bistoolad hal xaba ku jirta madaxa ka saaray nin ka mid ahaa shaqaalihiisa kadibna keebka u qabtay laakiin xabad kama soo boodin alla amarkii nin kale oo la socday ayuu madaxa ka saaray sidaasi oo kale xabad kama soo bixin nin saddexaad ayuu sidii oo kale ku sameeyay laakiin alla amarkii xabad kama soo dulin markaana markii afaraad ayuu isaga madaxa iska saaray hase ahaatee markaan xabad ayaa ka soo booday bistooladii ayada oo fadhiisatay maskaxdiisa Stavenia Bashe oo ahayd gabadhii ay isjeclaayeen Ibrahim ayaa sheegtay inay mar kasta ka xumayd sida jaceylkeeda uu jecel yahay hubka waxay maqashay dhawaqa xabadda iyada oo saaran dabaqa guriga waxayna hoos u soo fiirisay meesha ay xabaddu ka qaraxday waxay markiiba aragtay saaxiibkeed oo ku dhex jira waasko dhiig ah durbadiiba waxaa Ibrahim loola cararay isbitaal military oo Mareykanka ay ku dhaxlahaayeen magaalada Muqdisho Shanklin waxaa laga wacay teleefanka waxaana lagu wargeliyay dhaawacii Ibrahim Hello Mike Ibrahim dhaawac halis ayaa soo gaaray sida uu dhaqsiyaha badan isbitaalka ku soo gaar durbadiiba Shanklin wuxuu degdeg ku tagay isbitaalkii halkaas uu kula kulmay nin gacanyaro u ahaa Ibrahim oo shaarkii uu watay dhiigga uu ka tifqayo Shanklin wuxuu siibay shaarkiisa wuxuuna siiyay ninkii gacanyaraha u ahaa Ibrahim isaga oo ka qaatay shaarkii dhiigga lahaa kuna yiri dhiigga daaya waa dhiiggayga nasiib daro dhakhtarkii madaxda ka ahaa isbitaalkii militariga Mareykanka ayaa diiday inuu daaweeyo dhaawacii Ibrahim waayo isbitaalada militariga laguma daaweyn karo qof aanan ahayn muwaadin Mareykan ah wuxuu ku dooday dhakhtarkii halkan waa isbitaal Mareykan ah ninka xabadda ay madaxa kaga taalna waa muwaadin Soomaali ah si looga dhaadhiciyo dhakhtarka inuu qalin ku sameeyo Ibrahim
ayaa taliyihii xafiiska CIA-da Muqdisho Gareth Jones wuxuu u diray ku-xigeenkiisii John Spinelli, laakiin dhakhtarkii wuxuu ku adkaystay go'aankiisa, taas oo keentay in Spinelli iyo nin kale oo ka socday muqaabaraadka militariga iyo dhakhtarkii Mareykanka ay dhex marto dood aad u kulul, waxaana lagu sigtay in gacmaha la isula tago. Spinelli wuxuu dhakhtarkii ugu hanjabay inuu ku celin doono dalka Mareykanka, wuxuuna markiiba wacay taliyihiisii Gareth Jones wuxuuna ku yiri: Gareth, ninkan Ibrahim wuxuu u muuqdaa meyd, laakiin wali waa uu nool yahay. mana u muuqato ilaa subaxnimada berita in qalin lagu sameyn doono. Roger that, sir. We'll get right back to you. subaxnimadii xigtay Ibrahim waa uu geeriyooday iyadoo aanan far loo dhaqaajin dhankiisa. Shanklin wuxuu geeridii Ibrahim ku wargeliyay Stevenia Bashe oo ahayd gabadhii saaxiibada la ahayd Ibrahim. waxay durbadiiba ka naxday geeridii ku timid saaxiibkeed. Mike Shanklin wuxuu Stevenia u sheegay inuu si xan ah u maqli jiray in Ibrahim ciyaaro Russian roulette-ka, laakiin uusan weligii ku arag. CIA-du waxay aad ugu xumaatay geeridii ku timid Ibrahim, waayo waxay rumaysnaayeen inuu gacan weyn ka siin doono dadaalka ay ugu jiraan qabashadii Generaal Maxamed Faarax Aydiid. wuxuu Ibrahim geeriyooday iyadoo ay jirto qorsho ay CIA-da ku doonaysay in Ibrahim uu hadiyad ahaan Aydiid ugu geeyo ul bakoorad ah oo ay ku dhex jiraan qalab lagula soconayo qofka sita ushaasi halka uu marayo. Stevenia Bashe waxay dib ugu noqotay dalkeeda Talyaaniga iyada oo dareemaysa qalbi jab ay kala kulantay geerida gacliyaheeda. waxay aad u gocotay inay jeclaan lahayd inay shil la gasho mooto ay ku kaxaysan jirtay dalkeeda. Mike Shanklinna waxaa la siiyey ogolaansho uu ku booqan karo gabadhaasi. wax yar kadibna Mike iyo gabadhii Talyaaniga ahayd waxay isku arkeen dalkaasi Kenya iyaga oo bilaabay in xiriir jacayl uu dhex maro. Shanklin wuxuu go'aansaday inuu guursado gabadhii Talyaaniga ahayd ee uu ka geeriyooday Ibrahim, kadibna uu deegaan ka dhigto isla dalkaasi Kenya. Mike waxaa soo food saartay inuu kala doorto CIA-da iyo jacaylkiisa cusub, wuxuuna doortay gabadhii isaga oo ka ruqsaystay shaqadii CIA-da. saraakiisha CIA-du waxay ku adkeeyeen in shaqo ka tagistiisa ay noqoto mid qarsoodi ah, taas oo macnaheedu tahay inuusan qofna u sheegi karin inuu 13 sano la soo shaqeeyay CIA-da. hase ahaatee Shanklin waa uu jebiyey axdigaasi. wuxuu u sheegay dhowr shirkadood oo Mareykan ah oo ka shaqaynaya arrimaha amniga, kuwaasi oo xarumo ku lahaa dalkaasi Kenya. markii dambe isaga iyo Stevenia Bashe waxay go'aansadeen inay wada degaan Fairfax, Virginia oo dalkaasi Mareykanka ka mid ah. muddo gaaban kadib Shanklin wuxuu aaday dhanka xarunta dhexe ee CIA-da si uu u helo shaqo qandaraasle ammaan iyo tababarada ah. kumanaan shaqaale hore oo CIA-da ayaa habka noocaasi ku shaqeeya, waxayna helaan kaarka cagaaran oo awood u siinaya inay hay'adda xiriir dhow la sii yeeshaan. si uu kaarkaasi u helo Shanklin wuxuu u baahnaa in baaritaan adag la mariyo. intaanan baaritaanka bilaaban wuxuu Shanklin qirtay inuu ku guuldaraystay inuu sheego xiriirkiisa ka uu la lahaa Stevenia Bashe oo ahayd gabadhii uu ka geeriyooday Ibrahim Hussein oo ay CIA-da Mareykanka la shaqaynayay. baaritaankii koowaad waa uu ku dhacay, mid labaad ayaa loo iclaamiyey. baaritaankii labaadna kii hore waaba ka sii xumaaday ayadoo ay jirto in Shanklin uu go'aansaday inuu si daacad ah u hadlo. haddaba xaaladda Shanklin maxay ku dambayn doontaa haddii uu galay xafiiskii CIA-da? sidee ay isku barteen isaga iyo ganacsadaha Soomaaliga ah waa Ibrahim Hussein? Shanklin markii uu soo galay magaalada Muqdisho maxaa ka qabsaday halkaasi? la soco qaybta labaad oo noqon doonta mid xiise gaar ah yeelan doonta insha Allah.